magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxa taariikhda inta la hayo la sheegay in magaalada Garowe la degay intii u dhaxaysay hilaadii 1921 ilaa 8 taasi oo haatan laga joogo muddo dhowr iyo 9 sano ah. taariikhda degitaankeeda waxa la sheegay inuu ka soo bilaabmay Togani caasimadda Dhexmara oo dadyowgii hore la sheegay inay u yaqaaneen Mijama Qarshe, taasi oo 1921 ilaa 8 intii u dhaxaysay dadkii ugu horeeyay ay halkani noloshooda ka bilaabeen. kadib Garowe markii ay magaalowday dadyowgii ugu horeeyay ee ku soo hirtay nolosheeda ee degay waxa la sheegaa inay ka yimaadeen degmada Ayl oo ka taariikh horeysay Garowe. waxaan taariikh ku hayaa Garowe waxay ku soo bilaabatay ceel biyo toga weyn baa xooluhu ka cabi jireen durdur baasalkiisa hore ahaa dooxadii nugaaleed buuriya dhex yaala asalkiisa hore daraawiish baa degtay dabada daraawiish Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga ka kiciyay dhulkaana wuxuu ahaan jiray dhulkii Talyaanigu xukumi jiray marka magaalada udubkeedii ugu horeeyay ceel biyo iyadoo ah waxa degay Talyaaniga isticmaalka ahaa marka uu degay wuxuu ka dhistay qalcadda hadda booliisku degan yahay qalcadda barxadda ahayd iyo dhowr kale Talyaanigii markuu 10 sano xukumay daakhiliyadii baa nala siiyay dawladdii dabadeed waxa dhalatay aadan cadde markuu muddo hayay dawladnimada tii Cabdirashiid baa ku xigtay tii Cabdirashiid waxa haddana kala wareegay dawladda militariga ah Maxamed Siyaad Barre 22 sano dalka ka talinaysay dawladdaas kacaanka ahayd baa Garowe markaas si fiican u magaaleysay oo xiray dawladeed nooc walba ka dhistay dawladdaas laamiyada marisay oo buundooyinka marisay oo si fiican u magaaleysay dabadeed markii burburku dhacay muddo yar ka bacdi 7 sano ka bacdi waxay noqotay magaalo shirarkii waxa lagu qabtay wada tashiga ahaa ee Puntland markii Soomaaliya heshiin weyday Puntland baa laga hirgeliyay Puntland baa looga dhigay magaalo madaxeed iyo Boosaaso ku tartamay Garowe magaalo madaxeed tartankii ku heshay cod qalabiyada dabadeed saasay Garowe ku noqotay magaalo madaxeed Puntland intii ka dambeysay Puntland dhowr dawladood baa isku daba maray dawladdan hadda aynu joogno oo ka arrimiyo Professor Deni ayaa maanta ka arrimisa Puntland marka marxalad badan bay ruuxeedu soo marday Garowena marxalad badan bay soo marday marka Garowe waxay noqotay magaalooyinka iyo gobolada koray nugaal bal Axmedow dadka aan taariikhdeeda garanay nugaali halkay ka soo bilaabantaa halkay ku dhamaataa 3 qaybood baad ii sheegtay inay nugaali ka kooban tahay nugaalu sharaxayo nugaal saanan uu sheeko ku hayaa ama ku arkayba nugaali waxa la yiraahdaa 3 qaybood qaybta sare waxay ka soo bilaabataa meel la dhaho Caynaba oo nugaasha sare la dhaho dooxada nugaalada oo dhaxo la sacaniyo Garowe ku fadhiyaan oo la dhaho nugaasha dhexe nugaasha hoose degmada Ayl oo ay ku biyo shubtaan nugaal markaan biyaha ka soo dhaca degmada Caynabo waxay ku biyo shubaan degmada Ayl dooxaas dhaxo nugaalaasha dhudhubka dhaxabay soo qaadaan marka dadku saas ma wada fahansana dadka saas aan wada fahansanayeen nugaal waa 3 qaybood ka kooban wadooyinka Garowe waxaad noo sheegtay inay Garowe tahay meesha centerka waa Soomaaliya oo dhan marka la eegayo Puntland centerka waa ama istaraatiijiga oo ah la isugu wada yimaado maxay ku noqotay waxay ku noqotay centerka Soomaaliya horta waxay ku noqotay laamiga dhaxo Soomaaliya isku xira baayada Dhexmara dawladda kacaankaana hirgelisay Shiinaha maana markaa gacanta ku hayay deeqdii Shiinuhu inay si ugu weyneed oo Soomaaliya oo dhan laamigaas ugu weynaa laamigiina xudun wuxuu uga dhigay Garowe nasiib u heshay waqooyi wuxuu leexshay qibladda waqooyi buu leexshay laamiga koonfureedna wuxuu ka yimaadaa halkaas iyo koonfur buu ka yimaadaa laamiga barina markaad meesha joogtay centerka X controlka ayuu wuxuu aadaa gobolada bari oo Garowe ay ka mid tahay marka saasay centerka Soomaaliya horta ku tahay centerka Puntland waxay ku tahay waxay xiriirisaa gobolka Sool gobolka Mudug gobolka Nugaal gobolada bari baan dhihi lahaa iyo gobolka Sanaag ayay xiriirisaa saasana iyaduna xudunta Puntland ay u tahay oo laamigeedii dhex ugu yaala la isku yimaada
axmedow magaalo kasta waxbay caan ku tahay garoowe maxay caan ku tahay ee magaalooyinka kale kaga duwan waxay kaga duwan tahay laamiga shantaraalka ee Soomaaliya qaybiya lambar 1 laamigaas ay horta ku tahay caan oo qof walba garoowe xasuusta laamigaas uu xasuusanaya waxay ku tahay toga weyn iyo bundada weyn oo aad soo aragteen waxay ku tahay barxadda weyn oo magaalada dhexmadha waxay ku tahay masaajidka taariikhda ee timirka masaajidka jaamaca waxyaabahaas ay garoowe caan ku tahay qayb farda loo yaqaan farda nugaaleed oo qurux miiran haaba iyaduna caan ku tahay dooxada nugaaleed oo geelu jecel yahay oo daranta leh iyaduna caan ku tahay maxaad ka xasuutaa dhismayaashii ugu horeeyay haday noqdaan qaar dawladeed iyo qaar shacab iyo masaajidada aad xustay iyo waxaan xusaa masaajidka timirka iyo kan jaamaca bay Puntland ka hor horta lahaan jiray garoowe waxaan xasuustaa masaajidka qalcadaha Talyaaniga midna booliiska tahay midna maxkamadda oo aan jiro barxadda laga dundumiyay waxaan xasuustaa xiradii booliiska weynayd waxaan xasuustaa garoonka kubadda cagta ceelasha riigaga biyaha waxaan xasuustaa dhammaan xiriyaha dawladda nooc walba ha ahaatee oo ay caanka ku tahay garoowe lahaan jiray Puntland ka hor lahaan jiray abkay xirad dawladda oo dhan bay lahaan jiray noocay tahay imaka garoowe halkay maraysaa marxaladahaas soo martay 39 sano jirtay maanta bal dadka u sawir inta degmay ka kooban tahay caasimadii Puntland bay tahay inta degmay ka kooban tahay bal sawir ka sii bulshada gobolka nugaal ee garoowe wuxuu degmooyin ka kooban yahay lambar 1 degmada garoowe oo gobolka nugaal magaalada dhexdeeda ah degmada buurtinle degmada aylo iyaduna taariikhiyan qalcadihii sayidku ka dhisan yihiin magaalo xeebeeda waxay ka kooban tahay degmada dangoroyo afarta degmada godob jiraan shanta degmay horta degmahan magaaladu ka kooban tahay hadda inta u diiwaan gashan iyo magaalooyin yaryar oo kala badan oo tuulooyin degmo sugayaal garoowe weligeed waxay magaalooyinka xoog ku koraya siibana inta eeder Puntland jidhay magaalooyinka xoog u kobcayo u fidaya marka kobceedu waa fiican yahay wataas hadeer magaalo cusub baa inoo muuqata oo niyu garoowe la dhaho hare meel walba hareerta garoowe aad uga baxdid xaafad walba niyu garoowe la dhaho cusub oo kobcaysa ayaa arkaysa wax ila dhaqaalayo waaweyn ma laha markaas wax warshadayo waaweyn ma laha warshada yaryar ma ahane garoowe dabcan waa kulayl dadkii ku barbaaraad kamid ahayd ma dhul xeebeed ba maxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale bal ayada taa taariikhdeed dhul xeebeed ma ahan hadda xeebtu waa ka durugsantahay xeebtu degmada ayli degmada godob jiraan iyo u jidhaa marka kulaylka waxa keenaya dooxada nugaal oo didiba oo baa keenaysa kulaylka Soomaaliya badankeedana gobolada badan kulaylka way la wadaagtaa iyadoo waxay ku sii dheerdhahay dooxada nugaal baa sideedaba u kulul halkaas xilliga kaleesha ay kaga kulushahay gobolada kale fardii abaara badan oo kala dambeeyay dayactir la'aan Soomaalidu qiimahooda fahansanayn waxa la yiraahdaa geyga Soomaalida way ka yaraadeen imaka nugaal say ku yiin fardii nugaal weligeed ay horta kaga horeysay fardaha Soomaaliya farda badan baana ku dhaqan farda xariiri baana magacooda la yiraahdaa ereyga nugaalba waxay kula baxday nugul waxa la yiraahdaa xagga fardaha looda ariga iyo waxyaabahaas nugul la dhaha marka si kasto abaar u dhacdo ilaahay waa fufiya way iska soo kacaaniin lagama waayo si kasto jilaal u dhaco ama ay u dabar go'aan haddana waa laga helaa badan baan garanay garoowe macnaheedu waa garoowe macnaheedu waxa weeye waxay kula baxday magaaladu asalkeeda hor markay ceel ahayd qurac yar oo badan baa ka bixi jiray geedka quraca baa garoowe la dhihi jiray garoowe halkaas ka soo garoowe ereyga garoowe halkaas ka soo jeeda geedka quraca oo macnaha halkaas waagi hore loogu yimi oo faraha badnaa baa garoowe la dhihi jiray marka ereyga garoowe halkaas ka soo jeeda geedka quraca baa garoowe la dhihi waayahay waxyaabaha imika ugu muhiimsan asaasiga biyaha ayaa kamid ah garoowe halkay ka heshaa biyaha imaka waqtigan dooxada nugaaleed ilaahay baa horta sideedaba hodan biyaha uga dhigay biyaha saraa ku badan ceelal waxay leedahay tugag waran oo biyaah waxay leedahay balliyo jidhaamo hadda riigag bay magaaladu cabtaa markii tugag waxaas ay go'aaniin riigagaas waaweyn bay magaalada waraabiyo biyaha laga siiyaa biyo sifaysan baa jiro inta warshadu sifeeyaan oo naciimta la dhaho nuwaakayo nooc magacyo badan leh oo shirkado badan halkaas baa markii garoowe kuwa xareeda jiro markii roobku doo meelaha ciidda san loo taagaga booyadu ka soo dhameeyay birkadaha ku shubaan birkadahaas lagu kaydsadaa xareeda halkaas baa markaa iyadana laga helaa biyaha macaan dawladihii kala dambeeyay haday noqoto tan Professor Dani ee hadda joogta Cabdiweli Cali Gaas Faroole maxay dawladahaasi wax qabada ka sameeyeen
dawladaha kala dambeeyana mid waliba wax qabad bay lahayd mid waliba meel wax soo gaarsiisay haba kala wax qabad badnaadeene haba kala dhaqaale badnaadeene marka dawladahaasi limintooda xasidi mayna ayaguna meel fiican bay ayaguna wax soo gaarsiiyeen jidad bay sameeyeen laamiyay sameeyeen xiriir dawladeed bay sameeyeen marar bay ciidamada dhisaan marar bay waxbarashada dhisaan marar bay sportiska dhisaan marka iyaga ruuxooduna waa kala fiicnaayeen meel fiican waxbay soo gaarsiin wax qabad bay lahayd waxaan ku darayaa dadka waxaan dhahayaa gobolka Nugaal baaxad buu yeeshay waa fiican yahay santarka Soomaaliya yaala laamiga Soomaaliya qaybiyaa ku yaal ummadda dibadda jidhay dakhilka jidhay waxaan leeyahay soo dega maal gashada hanti ka dhistay warshado waaweyn keena dhaqaale keena isugu imaada meel kasta oo Soomaaliya mid dibadda ka joogtaan gobolka Nugaal wuxuu tartamayaa caasimadda Soomaaliya mustaqbalka beero way leedahay marakan dooxadii Nugaaleed baa meel walba riigag la geliyay waagi hore lama fahansanayn halkaas baa qudaarta asaasiga laga helaa tamaandhadii kulli wax walba laga helaa basashii qarihii mooskii baa ka baxaya canbihii baa hadda ka baxaya nooc walba waa laga beeraa riigag baa laga qoday dhulkii biyihii baa kor loo soo saaray horumar baa la gaaray waxaan sa jeclahay aniga Axmed ahaan in inta laga sii kobciyo laga sii ballaariyo oo horumarka la sii casriyeeyo